maqadii magafeenad maqashaa laga yaabaa marka waa maqada kanna wata magafii caadigiiba markaa naga iibiyay ala qof 2,000 ayuu naga siiyay marka isagiina wuxuu noogu dhuftay 12,000 rafaad badan baanu marnay habeenada kamida ayaa qolo shiftaa baana soo weerartay 15 baabuur udhishikayaashii iyo hubkii wata dagaalku markaa 3 habeenimo bilaabay 9kii subaxnimo markaa dagaalka soo afjarnay habeenkii ma naaseexan dhulku sidoo noola gariiriyay waa Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi waa wiil dhalinyaro ah oo magaalada Hargeysa ka tahriibay isla markaasina u baxay safarka dheer ee tahriibta sidii marun uu cagihiisa u dhigi lahaa dalalka Yurubta oo ay ka horeyso waddo dheer oo rafaad badan waxa uu la kulmay intii uu jidka ku sii jiray dhibaatooyin fara badan oo ilaa hadda jidkiisa ay ka sii muuqanayaan dhaawacyadii loogu geystay inta u dhaxaysa Hargeysa ilaa Liibiya socodkaygii Hargeysaanu ka bilawnay salaadii subax baanu baxnay alxamdulillah waxay aanu dhibaatoonaba ilaahay wuu nabadgeeyay habeen baanu galnay markaa ilaa 7 habeenimo 8 meelahaasaan u galnay Suudaan rafaad badan baanu marnay dhowr cishan sii soconay markaa maalintiina la kala wareejinay qoladii Liibiyaankii iyo Suudaaniyiintii la kala wareegeen ayaa cabaar markaan soconay ilaa 30 daqiiqo ku dhawaad ayaa qolo shiftaa baana soo weerartay dan hubbaa la isweydaarsaday qoladayadii baa markaa la jabsaday alxamdulillah cid waxba naga may noqon laakiin qoladii kale na wadatay baa laga adkaaday kuwii baa iyaguna dhowr cishan la sii socday kuwii baa haddaba na iibiyay markaa magafii caadigiiba markaa naga iibiyay ala qof 2,000 ayuu naga siiyay marka isagiina wuxuu noogu dhuftay 12,000 ala shakhsi 12,000 baa laga rimay waxaanu galnay nolol muruga badan waxaanu galnay nolol ay geeridu dhaanto waxa weeyaan mar walba safad ku jirtaa waa lagu jirdilayaa waa lagu garaacay inta koronta xiniyaha lagaaga qabanaya waxa weeyaan jirkaaga bacba lagu dhalaalinaya qaar ba gacmahaagan siday bir ula dhacayaan kaaba goynaya yacni marka lagu dhaahdo hebel baa dhintay waxaad oranaysay cawadiisa isaga ayaa nasiib leh oo maanta dhintay 10 jeer baan isku dayay inaan baxsado laakiin wuu ii suuro gali weeyay aakhir kii ugu dambeeyay anagu markay lacag naga soo dhamaatay yacni xaafadiina lacag ka dhamaatay ayaa waxa dhacday nimankii baan weerar ku qaadnay na ilaalinay nimankii markaan weerar ku qaadnay adigu waan jabinay meesha idna baabkii baa la jabsaday waa la yaacay wixii yaaci karayay waan xanuunsanayay jirkaygu googaay waqtiga qofku wuu curiyaamaya markuu in badan fadhiyo waxa weeyaan lugaha kama kici karaynin meeshan ku jirnay baan ka wareegay xagga dambaan u ordon meel aan la marin baan marayo kaligeey saan u guurguurinay nasiib wanaag laami baan helay laamigiisaan u socday gaari baabuur markaa hubeysan oo qolo shiftaa oo kamid ah raggan mukhalasiinta ama magafaha naga hor yimid saas bay nagu furaan qof walba meeshii u dhaway ayuu car halkii baan beerka dhulka dhignay markaan dhulkii jiibsanay gaarigii uu na dhaafay markaa aduu ilaahay shimbir bay noo soo diray 2 askar baa noo yimid labadii baa noo dhaartay awlaadoodii bay noogu dhaartay inay yiraahdeen madaxayaga saarantiin sidii baan ku aaminay aduu markii dawladii ba gacanta nagu qabatay Travelers baa la geeyay hadda Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi dhibaatadaas iyo noloshaasi u badnayd murugada iyo silaca kadib waxa uu nasiib u helay inuu dib ugu soo noqdo magaalada Hargeysa oo ku noolaa markii hore tani waa shaqada uu hadda haya Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi oo ku qanacsan yahay waxaan ugu kala baxaa xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa isagoona ku shaqeysta gaariga yar ee loo yaqaan duqaanta ama fitista hawlo kalena wuu wadaa Cabdiraxmaan waxa uu dhalinyarada hadda ay u qorsheysan tahay inay maraan wadadaasi dheer ee tahriibta iyo kuwa shaqo la'aanta ka cabanayaba uu kula taliyay dhalinyarada maanta waxay u baahan tahay seminar 7 yaro seminar u Liibiya in loo diro 100 raga baanu kaga imanay 100 ka raga bal maskaxdaadu haddii caafimaad qabto qiime badii bay lugaha la galeen ma fahanti lacag adduun way ku waayeen rag ba maal iyo naf ku waayay ma fahanti marka waxaan oran lahaa adeer maanta wadankaaga wax ku tahay wadankaaga maanta qof nool ku tahay oo la garanayo hebela
yarunbaa waddada weyn kugu rida adigu business sabee sarif 200 kaasha haddaan meel la fadhiisto intaasunbaa isbiirsanaysa adiga haddaba kartidaada iyo awoodda ilaahay ku siiyey intaba isticmaal baan markaa ninka maanta le halkanaan ka xaydxaydinayaa oo halkaasanu aanba baxayaa saaxib nolol soo kordhin maysida meydkaaguna ka fogeyn dadkaaga iyo ehelkaaga waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa.